بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وحوي قيبتي لبعض عن كجا هدلاي arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta dalka waxaan jecelahay maanta inaan marka ugu horeysa waan ku hambaliyeeyo wasaaradda maaliyadda arrin aan muddo badan ka hadlayay oo muddo badan maaragtay u dadaalay in wax laga qabto oo ahayd zaadkii lagu iibsanayay lacagta dollarka taasi oo dhaqaalaheena wax badan wax yeeshay qayb weyn ka ahayd sicir bararka had iyo jeer taagan ee dollarku mar walba uu dalabkiisu kacayo mana dhacdo ummad lacagteedii wadankeeda gudaheeda ay ku noqoto lacag ajnabi ah oo inaga maanta maartay wixii la iibsanayo dollar lagu sheego oo maxaan ku yiraahdaa hawdheeladii dollar wax laga cuno oo wax waliba maxaan ku yiraahdaa oo lacagtii kaarka lagu bixinayay ama telefoonada ay dhamaanteed dollar noqoto oo hadda istiraa shilin Soomaaliland ticket ku iibsan lagu leeyahay dollar ku soo xawil yani waxyaabaha noocaas oo kala waxay wax mar hore wax laga qabto laakiin dhaqankeena ayaa iska wax dhaqan inoo noqday oo aaminaad inuu lacagteena ka aamin baxnay lacag ajnabiya oo waraaqo cid kale daawacdeena aynu aaminay ayaa dhibaato badan inagu haysay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe talaabada ay qaadeen oo ahayd mar hore in la qaado waxa weeye maanta hadaba lacagtaas dollarka aynu wax ku iibsanayno waan dhamaanteed qandaraasyada waa lagu sheegaa lacagta Somaliland maxaan ku yiraahdaa dawladdu biilasha bixinayso waa inay ku bixisaa lacag Somaliland markay maxaan ku yiraahdaa hadii alla yiraahdo wax la iibsanayo waa nimanka baacimiirka shacabku waa inay dhamaantood ay tixgeliyaan oo lagu sheegaa badeecada qiimaheeda lacag Somaliland shilin Somaliland lagu iibsado taasi waxay keenaysaa in bangiga dhexe uu diyaar garoobo lacag ku filan oo kaafida dalka oo Somaliland shilin ee dalka taalo taasina waxaan filayaa inay kulliye arrimahaasi laga wada naaqishay oo diyaar loo yahay oo la heli doono lacag ku filan haddii lacagtu ka yaraato suuqa waxa weeyeen waxay keeni kartaa maxalad kale oo aad baahidii inay daboosho maadaama lacag badan oo dollarka ay lagu iibin jiray lacagtii dollarka ahayd wixii bedelay lacagtii Soomaaliland diyaar loo ahaado diyaar bar arrinta laga noqonaya waana shacbiga aan ku goobaabinaya war lacagtiina aamina si lacagteena marka aamintaan ay dawladdu u maareyn karto lacagta suuqa ku jirta lacag dollar oo dibadda laga keeno siday dawladdu wax ka meesha waa adag tahay waxa weeye qodobkaasi waa qodob muhiim ah oo wasaaradda iyo xukuumadduba ay asiibeen ahaydna inaguna maanta sidaasi aan ku qaadano oo aynu aamino oo lacagteenaasi Somaliland shilinka ah ee dawladdeenu ay damaanada ka tahay waxaad ogaataa inay ka xoog badan tahay lacag shisheeye oo dibadda ka timaada oo waraaqahaasi waliba forgery badan baa ku dhijira baa la yiraahdaa lacagta dollarka oo inagu maaragtay qalab haagsan dadka masaakiinta ma haystaan lacag badan oo qalad ah way soo gashaa xagga dollarka taan saa kaga baxo qodobka labaad ee jecelahay in wax laga qabto oo bulshaduna ay tahay inay u diyaar garowdo oo ay hadii ka raagno maslaxada guud oo maslaxada shakhsiga iyo maslaxada qof leeyahay abaabulkeeda aynu hadii jeer iska ilaalino aynu noqono dad garanaya wixii ummadda u dana waxa ummadda u dana wax wada qabsiga in wax wada qabsado inaynu shirkada abuuro in wax soo saarkeena cidii u heelan ee wax soo saaraysa cid shaqo gelinaysa in isbarbar taagno taasina waxa weeye ama ninkii warshad la yimaado sidii dhul loo siin lahaa ninkii shaqo abuur la yimaado sidii loo garab gali lahaa dalka inaynu dhamaanteen goboladeennu ku tartamaan war cidii maal gashanaysa ay kaalay hadaan ahay togdheer war hadaan ahay sanaag ay kaalay war hadaan ahay maxaan ku yiraahdaa boorame ay kaalay laakiin dadka inaynu qoloqolayno oon ka dhigno gobolkii in cid leedahay oo cidii maal gashan lahayd la isku hortaago arrinka in laga koro oo loo arko ninka maal gashanayo gobolku inuu gobolka wax tarayo ciddu ka shaqaaleysayna dadkii gobolka tahay taasi maaragtay had iyo jeer waad ogtahay adduunyada maalgashiga shisheeyaha lagu tartamaa oo la yiraahdo muddo intaas oo sanadooda cashuur ka qaadmayna kala dalkayga dadkii muwaadiniinta hadii qolqol
loo kala googooyo oo la yidhaahdo buurtana hebel baa leh buurtaana hebel baa leh maxaa la yidhaha dhagaxaa ma taabanaysid horumarku ma gaadhayno. waxaa iyana jirta telecommunicationka ama isgaadhsiinteena khaasatan telefoonada in la isku xidhaa waa dan guud baa ku jirta. dan guud baa ku jirto tartankii suuqii xorta ahaa inuu lahayn suuqu waa xor. qawaaniinta ilaalinaysa waxaa ka mid a dee in loo helo in dadku ikhtiyaar ay yeeshaan telefoonka ay qaadanayaan markay wada hadlayaan telefoonadu dee waxay qaadan karaan ma garanaysa hal telefoon oo ah ka jaban ama ka serviceka wanaagsan leh oo dadka iyaguna waxay ku tartami doonaan nimankan ganacsatadii siday dadka usoo kala jiidan lahaayeen. laakiin marka aanad ikhtiyaar ba lahayn ee labadeeni kambani ama saddexdeeni kambani ayna wada hadlaynin dee adduunka ma dhacdo. dibaddana waad la hadli kartaa laakiin nin telefoon lambar kala sita ama shirkad kala sita lama hadli kartid. waxaasi meel adduunka lagaga dhaqaa ma jirto. khasaare weyn baa ayaa ku jira. waxaa ku jira inefficiency, waxaa ku jirta qalad badan baa ku jira. qalad arrinkaa in la saxo oo muwaadiniinta iyo consumersku ikhtiyaar ay yeeshaan oo competition xalaal oo suuq xora uu noqdo. arrinkaasi in laga dadaalo in badan baa la isku dayay. waxay la dhaqaaqi laadahay waa in la taabtaa oo la saraa oo bulshaduna ay ka hadashaa oo garab gashaa oo arrin loo baahan yahay ay noqotaa oo dowladda laysula berber taagaa ee dowladda aan ma garanaysaa loo arko inay wax u qabanaysaa tahay dantii guud ee ummadda, inay tahay adiga iyo aniga iyo xukuumadda lafteeda oo telefoono fara badan khasaare badan ay kaga baxo. waxaasoo dhan inaynu garanaysaa iska kaashano oo si xalaala oo xora suuqa loo furo oo lagula tartamo maxaan ku dhaha adeeg wanaagsan iyo sicirka. nin waliba halkii uu doono markaasi uu telefoonka uu doono uu qaato ee aan lagu kalifeyn 2 iyo 3 telefoon oo aan u baahnayn.